wasiirka Hawlaha Guud Guryanta Somaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale qambi oo xalay soo gaaray magaalada Erigavo ayaa saaka kormeer ku gaala bixiyay qaar ka mid ah xafiisyada laamaha dawladda ee magaalada Erigavo waxaana wasiirka ay u helinayaan mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Geeska ay booqdeen xafiiska wasaaradda Hawlaha Guud ee gobolka Geeska isbitaalka guud ee magaalada Erigavo qayb ka mid ah dhismayaal ka socdaan iyo goob loo asteeyay in garoon cusub oo kubadda looga yagleelo magaalada Erigavo waxaana wasiirku halkaasi warbixin kaga dhageystay siduwayaasha wasaaradaha Hawlaha Guud iyo Guryanta caafimaadka iyo ciyaaraha wasiirka Hawlaha Guud Cabdirashiid Ducaale qambi wasiir waxaanu ku leenahay soo dhawow wasiirku wuxuu socday hawl maalmeedkiisii shaqo wuxuuna guurgalayay sida shaqooyinka ay gobolka uga socdo hawshiisii shaqoona ku jira waa mid waajib ah waxyaabo ugu weyn naga dhiman waxa kamid ah iskuul nursing waxyaabaha kale oo ka dhiman dhismaha la sameeyo waxa kale oo kamid ah isbitaalkii waalida oo hadda la ka dhigan isleeyahay kullu wasaaradahan waa noogu jira wasiirahana kullu rool weyn ku yeelanaysa insha Allah billahi kariim garoonkan wuxuu noqon doonaa xukuumaddu wixii labaad ee ugu weynaa ay gobolka u fulisay waa garoon standard waxaan ugu talagalnay in si dhaqsiyan aan loo bilaabo hawshiisa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Erigavo ahna kusimaha maayirka magaalada Erigavo Saalax Ismaaciil Cabbaas iyo barsaab ku xigeenka gobolka Geeska Ismaaciil Cabdi Xasan waxaanu dhex taaganahay isbitaalkii weynaa isbitaalka baahiyaadkiisu waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dhismihiisuna kulli in la sii kordhiyo mooyaane in inta lagu daayo mudane wasiir ma aha dhammaantii hadaan Erigavo shacabka soo dhaweynayaan boqol gacmo furan bay ku soo dhaweynayaan wasiir halka ay wasiir joogna haddana waa dhakhtarka dhismaha ka socda waxa ka socda garoonka ciyaaraha hal meel halkan ka socda dhismayaasha socda oo dhan inaanu ku tusmaad nala aragtid baan doonaynaa maadaama aad ku leedahay door weyn ku leedahay inaad naga jeegaraysid oo wax kuwaalati aanu helno ugu dambeyntina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda Hawlaha Guud gaadiidka iyo Guryanta Somaliland Cabdirashiid Ducaale qambi oo ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa halkan inaha aan u soo gaaray in wasaaradda Hawlaha Guud wixii hawl ka baylahsan ay qabtaan booliska guddiga nabadgelyada meeyarka meeyar ku xigeenka guddiga deegaanka gobol degmada Erigavo inay la qabtaan baan doonaa war wixii dan guud ee ummadda ka dhaxay hal la ilaaliyo baan oran lahayn ama guri ha ahaado ama dhismo kale ha ahaado ama iskuul ha ahaado ama dhakhtar ha ahaado ama dhul bannaan ha ahaado waxa kale uu sheegayaa dadweynaha gobolka war buuraha iyo dhulka jeexjeexyada ah cid hantii kartaa ma jirto cid wax ka dhisan kartaa ma jirto cid sheegan kartaa ma jirto Jaabir Siciid Ducaale Jaabir Bulshaawi Geeska TV Erigavo